gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz waxaan ognahay bishii 9aad ee September sanadkii hore inuu ku dhawaaqay inuu mar saddexaad u tartamayo xilka gudoomiyaha gobolka Minnesota laakiin maanta shir jaraa'id uu qabtay ayaa waxa uu ku difaacay labadii xilli uu gudoomiyaha gobolkaasi ahaa waxana uu ka difaacay eedeymaha musuqmaasuqa baahsan ee ka jira gobolka Minnesota oo dawladda federaalka iyo taageerayaasha xisbiga Trump ay u soo jeedinayaan waxana uu sheegay inuu dadaal dheer ku bixiyay sida dadka ka faa'iideysanaya gobolkaasi barwaaqada ah isla markaana doonaya inay xadaan lacagaha loogu talagalay dadka nugul in ay qaarkood xireen kuwa hadda maxkamada ay ku socdaan kuwa kalena dabagal lagu hayo waxa uu sidoo kale ka difaacay Soomaalida eedeymaha loo soo jeedinayo oo ah dhinaca musuqmaasuqa inay Soomaali fara badan ay ku lug leeyihiin waxana uu sheegay in dhibca raqiis oo dhinaca siyaasadda ay raadinayaan dadka Soomaalida ah eedeynaya ugu dambeyntii waxa uu sheegay in 2026 dhamaadkeeda uu yahay ama sanadkan uu yahay sanad doorasho sidaas darteedna xilliga ololaha doorashada tartan ayaa jira arrimaha siyaasadda waa lagu kala tartamaya marka waxa uu yiri anagu ma awoodno ayuu yiri sanadkan inaan ololo doorasho galno isla markaana dadka Minnesota aan waqti ka qasaarino waxa uu sheegay bishii September ee 9aad ee sanadkii hore inuu ku dhawaaqay inuu mar saddexaad doonayo inuu tartamo laakiin waxa uu sheegay haddii uu awoodiisa ama waqtigiisa uu ku bixiyo inuu ku kalsoon yahay in uu guuleysan karo laakiin waxa uu sheegay xilliyadii fasaxa ee Christmaska iyo sanadka cusub qoyskiisa iyo tiimkiisa markii uu la tashtay waxa uu go'aansaday in uusan tartamin isla markaana sidoo kalena waxa ii soo baxay ayuu yiri inaan tartankan isaga haro waxana uu sheegay in ololo doorasho haddii aan gala ayuu yiri arintaasi ay tahay fursad aan ka qasaarinayo dadka reer Minnesota isagoo sheegay in damiciisa siyaasadeed daqiiqad kasta uu ku bixiyay daqiiqad uu dadka reer Minnesota uga difaacayay dambiilayaasha kuwaasi oo ka faa'iideystay ayuu yiri lacagaha gobolkaasi Minnesota isla markaana kuwa kale oo iyaguna doonaya in ay ka faa'iideystaan kala qaybsanaanta gobolka Minnesota ka jirta waxana uu sheegay in uu go'aansaday inuu tartankan isaga haro dadka kale ee tartamayana iyagu ay ka fikiraan ayuu yiri doorashada soo socota laakiin waxa uu yiri maadaama aan tartankan isaga harayo waxaan ka harayaa aniga oo aan wax muruga ah aysan jirin isla markaana aan ka shalaynaynin waxyaabihii dadka Minnesota u soo qabtay waxa uu yiri shaqadan waxaan ugu tartamay ma ahan inaan shaqada helo oo kaliya laakiin waxaan u tartamay waxa ay tahay in aan shaqada qabto waxa uu sidoo kale xaqiijiyay in gobolka Minnesota uu wajahayo caqabado kala duwan sanadkan isla markaana uu doonayo daqiiqad kasta oo waqtigiisa inuu ku bixiyo sidii dadka reer Minnesota wax ugu qaban lahaa shaqadiisana uga soo bixi lahaa taasina waa waxa uu waajibaadkaygu iga dalbanaya yiri sida hogaamiye ahaan isagoo arrimahaasi ka hadlayay gudoomiyaha gobolka Minnesota waxa uu yiri 2026 is an election year. Election years have a way of ramping up the politics at a time when we simply can't afford more of that in Minnesota. In September, I announced that I would seek a historic third term as Minnesota's governor, and I have every confidence that if I gave it my all, we would win the race. But as I reflect on this moment with my family and my team over the holidays, I came to the conclusion that I can't give a political campaign my all. Every minute that I spend defending my own political interest would be a minute I can't spend defending the people of Minnesota against the criminals who prey on our generosity and the cynics who want to prey on our differences. So I've decided to step out of this race, and I'll let others worry about the election while I focus on the work that's in front of me for the next year. I'm passing on this race with zero sadness and zero regret. I did not run for this job to have the job. I ran for the job to do the job. Minnesota faces enormous challenges this year, and I refuse to spend a single minute doing anything other than rising to meet this moment. Minnesota has always come first and always will. That's what I believe servant leadership demands of me. dhinaca kale madaxweyne Trump ayaa goordhow wuxuu bartiisa Truth Socialka uu ku soo qoray isagoo ka hadlaya in gudoomiyaha gobolka Minnesota uusan mar saddexaad u tartamaynin xilka gudoomiyaha gobolkaasi oo shir jaraa'id oo maanta qabto uu ku sheegay Trump waxa uu yiri gudoomiyaha musuqmaasuqa badan ee gobolka Minnesota waxa uu xilka ka degayaa marka waqtigiisan uu dhamaado sida muuqatana ma tartami doono mar kale maxaa yeelay waxa la qabtay isagoo gacmaha ay dambi kula jira sida isagu uu sheegayo isaga iyo waliba Ilhaan Cumar iyo
in Soomaali kale oo saaxiibadiisa sida uu madaxweynuhu uu qoraalkiisa uu ku sheegay iyagoo xadaya 10 bilyan oo dollar oo canshuur bixiyaasha Mareykanka. Marka waxa uu yiri waxaan rumaysanahay in xaqiiqdu ay soo bixi doonto isla markaana ay jiri doonaan dad badan oo arintan ka taajiray oo la soo qaban doono. Waxaana uu leeyahay gudoomiyaha gobolka Minnesota waxa uu burburiyay gobolkaasi sida ay gudoomiyaasha kale Gavin Newsom sida uu isagu ugu yeero magacaas ula baxay laakiin Gavin Newsom gudoomiyaha gobolka California iyo JB Pritzker oo gudoomiyaha gobolka Illinois iyo waliba Kathy Hochul oo gudoomiyaha gobolka New York dhamaantood waa gobolada dimuqraadiga gudoomiyaashuna waa gudoomiyaal oo dimuqraadi ah. Marka waxa uu leeyahay sida aniga ay ila tahay waxa ay yihiin gudoomiyaal aan daacad ahayn isla markaana aan u qalmin shaqada ay qabanayaan. Marka waxa uu yiri qofna sharciga kama weyna. Marka sida uu leeyahay gudoomiyaashaas iyagana shaqadaasi ma ka soo bixi karaan ayuu leeyahay. Waxaana uu muujinayaa inuu ku faraxsan yahay in gudoomiyaha gobolkaasi kale uusan u tartami doonin xilka gudoomiyaha gobolka Minnesota. Marka sida aan ognahay arinta siyaasadeed ee hadda taagan iyo musuqmaasuqa gobolka Minnesota lagu eedeynayo waxa u muuqatay gudoomiyaha gobolka Minnesota in uusan hadii uu tartamo uusan guuleysan karin sida isagu uu sheegayna waxa uu yiri hadii aan dadaalkayga ku bixiyo waan guuleysan karaa laakiin qoyskayga iyo kooxdayda markii aan la tashtay waxa ay soo baxday inaan tartanka aan isaga haro. Dhinaca kale madaxweynihii wadanka Venezuela Nicolas Maduro iyo xaaskiisa Celia Flores oo habeennimadii Jimcaha ahayd laga soo qabtay caasimad wadanka Venezuela ee Caracas ayaa maanta iyadoo waliba amaankooda aad loo sugayay waxa la soo taagay maxkamad ku taala degmada Manhattan ee gobolka New York. waxaana maxkamadda markii la hor keenay labadooda waliba in isla maxkamadda hal mar la isla keenay ugu horeyn la soo hor istaajiyay madaxweynihii wadankaasi Venezuela Nicolas Maduro. madaxweynaha waxa matalayay oo qareen u ahaa Barry Pollack oo qareen fadhigiisu yahay magaalada Washington ee caasimadda DC. waxaana qareenadiisu ay ku andacoonayaan sharci ahaanshaha sababta loo soo xiray iyagoo sheegay maadaama uu yahay madaxweyne wadan madax bannaan in aan la soo qaban karin oo Mareykanka aan lagu maxkamadeyn karin. laakiin dowladda federaalku waxa ay leedahay Mareykanku ninkan waxa uu ahaa nin baxsad ka ah dowladda Mareykanka maadaama sanadkii 2020 dacwadahan lagu soo oogay. dacwadahan lagu haysto waxa kamid ah in uu hogaaminayay kooxo ka ganacsada daroogada iyo sidoo kalena in uu cocaine-ka kala gudbin jiray. waxaa sidoo kale jirta in uu haystay qoryaha machine gun-iska loo yaqaan iyo qalab wax burburiya iyo sidoo kale khiyaano haysasho qoryahaasi machine gun-is iyo waliba qalabka wax burburiya. waxaa lagu eedeynayaa madaxweynahan Venezuela in uu dad isaga daroogada u kala gudbiya uu u sameeyay baasaboorro diblomaasi ah isla markaana caalamka ay u kala gudbin jireen. xaaskiisana waxaa lagu eedeynayaa malaayiin dollar oo laaluusha inay ka qaadan jirtay. dadka iyaga ka soo horjeesta ama lacagaha siin waaya waxay sameyn jireen in jirdil lagu sameeyo la xiro amaba la dilo. marka eedeymahaas ayaa waxay yihiin eedeymaha lagu haysto. haddaba maxkamadda maanta markii la hor keenay Nicolas Maduro garsooraha waxa uu weydiiyey ma tahay Nicolas Maduro waliba magaciisa saddexan ayaa lagu dhawaaqay isaguna waxa uu yiri anigu waxaan ahay madaxweynaha wadanka Venezuela. sidaas darteed xitaa markii la soo xirayay dharkii loo geliyay oo ahaa Nike Tech Transuit waxa uu lagu iibsaday online-ka ayaa laga iibsado saacado ayaaba lagu iibsaday isaga sawirkiisa ayaana la soo gelinayay. waxaana sidoo kale uu sheegay in isagu wali madaxweynaha uu yahay wax dambiyana uusan lahayn lagana soo afduubtay gurigiisa oo ku yaala magaalada Caracas ee caasimadda wadanka Venezuela. waxaa sidoo kale waxyaabihii uu ka hor sheegay garsooraha kamida waxa uu yiri anigu dambi la'aan ayaan ahay qof iska caadi ah ayaan ahay. waxaana sidoo kale uu sheegay inuu rumaysan yahay in wadankiisa laga soo afduubtay. marka intii ay dhageysigu uu socday qoraal ayuu waraaq ku qoranayay madaxweynaha wadanka Venezuela. waxaana markii ay dhageysigu uu dhamaaday garsooraha uu weydiistay qoraalkan aan qortay ma qaadan karaa oo ma haysan karaa. garsooruhu waxa uu ku yiri waxaan rumaysanahay inaad xaq u leedahay inaad haysato. isagoo waliba Spanish ku hadlayay ayaa dhowr jeer waxa uu ku celceliyay inuu yahay maxbuus dagaal ayuu dhowr jeer ku celceliyay. waxaana sidoo kale jirta in uu yiri xitaa dhaawac ayaa isoo gaaray markii la soo afduubanayay. waliba xaaskiisa Celia qareenkeedana waxa uu isagu sheegay iyadana inuu dhaawac soo gaaro xitaa loo maleynayo
feeraha in uu jab jiro isla markaana barar uu jiro oo markii lasoo qabanayay si fudud looma soo qabanin sida hadda muuqata. Waxaana maxkamadda labaad loo ballamiyey bisha Maaj ee 17 sanadkan 2026 11 subaxnimo ayaa maxkamadda lasoo taagi doonaa. Marka Nicolas Maduro anigu dambi ma lihi ayuu yiri, maxbuus dagaal ayaan ahay. Wuxuuna sheegay sidoo kale in uu weli yahay madaxweynaha wadanka Venezuela. Wiilkiisa oo isaguna kamid ah dadka dacwadaha lagu soo oogay laakiin Mareykanku uusan soo qabanin oo baarlamaanka wadanka Venezuela kamid ahaa ilaa iyo sanadkii 2021 ayaa maanta baarlamaanka ka hor hadlay. Waxa uu yiri aabe waxaad samaysay qoys awood badan, wadankuna waxa uu ku jiraa gacmo wanaagsan inta aan ka sugayno inta aad dib u soo laabanayso. Marka sida muuqata waxa uu leeyahay waxaan sugaynaa inta aad uga soo laabanayso. Marka isaga lama soo qaban laakiin Mareykanku waa uu doonayaa in isagana uu gacanta ku soo dhigo. Marka dib ayaa loogu celiyay xabsigooda waxaana la filayaa in gargaar caafimaad ay heli doonaan maadaama labaduba ay leeyihiin dhaawacyo ayaa jira soo gaaray markii la soo qabanayay. Waxaa la ogaaday soo qabashadoodii ciidamada sirdoonka ee Mareykanka in ay gudaha Venezuela tageen. Dad madaxweynaha la shaqaynayay ayaana u basaasayay. Madaxweynuhu waxa uu cuno sida uu dhaqaaqo, meesha uu ku hoydo, sidoo kale xayawaanadiisa. Waxaa la leeyahay marka ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee militariga Mareykanka ee hadda soo qabtay waxay sameeyeen guri u eg midka uu degan yahay muddo ayayna waxay ku sameynayeen practice oo ay ku tababaranayeen sidii ay u soo qaban lahaayeen. Marka sida muuqatay dad isaga la shaqaynayay ayaa Mareykanka u basaasayay dhaqdhaqaaqa madaxweynahan halka uu ku hoydo, meesha uu tago, cuntada uu cuno iyo waxyaabahaasi oo idil. Waxaana la leeyahay howlgalkan qorsheynta lagu soo qabanayo Maduro waxa uu bilaabmay bishii Agosto ee 8.